munaasibadan ayaa gaar u ahayd shaqaalaha kala duwan ee ka howlgala shirkadda leydhka ee Heko taasi oo lagu abaalmarinayay isla markaana lagu dhiirigelinayay shaqaalahaasi waxaana ka soo qayb galay munaasibadaasi maamulka iyo shaqaalaha shirkadda leydhka ee Heko ugu horeynba waxa munaasibadaasi ka hadlay maareeyaha shirkadda Qadar Jibriil Aadan iyo waliba gudoomiyaha shirkadaasi Maxamuud Axmed Liibaan iyo qaar ka mid ah boardka sare ee shirkadda Heko iyagoona ka waramay dadaalka ay shaqaaluhu ugu jiraan haqabtirka bulshada ee dhanka leydhka waa shirkadda hormuudka ee shirkadaha leydhka ee Soomaaliland cidda heerka gaarsiisay inay hormuud noqoto oo ay shirkadaha Soomaaliland hormuud noqoto cidda gaarsiisay waa shaqaaleynaha halka fadhiyo weeyaan aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaantiin anigoon kala saaraynin wiisha aad shirkadda gaarsiiseen waan idin garana runtii waa farxad weeyaan shirkadduna waa idin mahadcelinaysaa mar walba shaqaalahana waxaa mar walba looga baahanya inay halkaa ay maaragtay ay shaqada gaarsiiyeen meel ka sii wanaagsan ay sii gaarsiiyaan cidda u shaqaysaan ee rasmiga ah ee aad shaqaalo u tihiin ee aad shaqo ku leeyihin waa kastaba loogaado waxaan aad iyo aad idinku baraarujinayaa adigoo idinku kalsoon adigoo waxqabadkiina idinku kalsoon waxaan aad iyo aad idinku baraarujinayaa inaad kastamarka si fiican ula dhaqantaan sida adigoo masanaysi ka sii wanaagsan aad ugu sii adeegtaan wixii baawarka nagala jeedaa injineerada ama odayatirada shirkadda ka shaqeeya shaashadaha daawada mishiinay kala bedelaan iyo mishiinadu ay wadaama jiro paadka ku sii saaraan ma jiro magaalada leynkaa loo baxaya markuu isbedelayo ma jiro cid kala bedelaysa automatic ku isbedelaya gurubkaas sida saa u baxay buu baxaya haddana caawa kusoo toosta saa usoo sheego kusoo tisaaran soo baxaya yani waa horumar technologiga casriga ay ka gaadhay waxaan ugu gelin solarkiiba ugu gelin waad ogtihiin inaan shirkadda ugu horeysa hadda solarka ay nahay waxa weeye caawa waa habeenkiinii shirkadda abaalmarintii shaqaalaha weeye mahadnaqii shaqaalaha weeye idinkaa caawa iska leh waxaan idin rajaynayaa guul sanadka sanadkiisa run ahaantii caawa waxaa noo farxada inaan idinla qaybsano abaalmarintan caawa halka laydinku siinayo taasoo ah runtii qiimayntii laydinku sameeyey sanadkii 2019 anu waxaan qabaa kulligeena waynu guulaysanay waayo ninkaan caawa halka laga sheegin halka fadhiya waa laga dhiirahaa shaqada waa laga saari lahaa waayo kontonkiibuu ku horseeyaa boqolkiiba kontonki aad iyo aad baa u mahadsantihiin haddaad tihiin shaqaalaha Heko runtii shaqadiinuna way wanaagsan tahay waxaase laydinka baahan yahay inaydaan isdhigan inuu shaqada kor u qaado waxaynu faraha ku haynaa waa shaqo xasaasiya waa shaqo leydh dadku daqiiqad kama maarmo waa wuxuu ka mid yahay kaabayaasha nolosha marka adeegaa haysaan waa adeeg aad iyo aad waxdhawar waa nolosha waa in aad iyo aad aynu ugu dadaalo waxaanu qoraynaa shirkadda inaad guul weyn u soo hoyseen qaar ka mid ah shaqaalaha shirkadda Heko oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka dareen celiyay dhiirigelinta loo sameeyay iyagoona sheegay inay dadaalka halka ka sii wadayaan aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa xafladda iyo sida aad noo sharafteen sanad walba aad noo ixtiraamtaan ee wanaagga iyo maxay haytay mar walba inoo garab taageen maamulkeenu runtii waxaa la odhan karaa shirkadaha geeska africa waa shirkadda ugu maxay haytay ugu adeega fiican ee shaqaalaha ugu roon ee maxay haytay sarfaceka bixiso waxaan nahay ama shirkaddu Heko tahay waa shirkadda qura ee geyga ama geeska afrikaba bixisa adeegaas oo ah dabka ah loo yaqaano tiri cafe waxaan u insha Allah qorsheynaynaa inaanu gobolada kalena sabalgareeno ama ay tusaale naga qaataan isugu nidi innaga iyo maamulka oo iskaashan guushii aynu gaarnay inaynu isku hambalyeeyno sidoo ku daadii bartaan waa ka horeeya inta la abaal mariyo oo ninkii dheereeyay la abaal mariyo qisay naga mid markii shirkadda iyo maanta haddii aynu isku badhigno aqoontii markaan muddooyinka leeg ee shirkadda joogay u kordhay dabcan waxaynu arki karnaa inay tahay yani aqoon
ballaaran oo weyn aqoontaasina yacni wax dee kharash ama lacag lagu qiimeyn karo maaha xaqiiqatan. ayaan le cabdullaahi jaamac warbaahinta caalamiga ee SBC magaalada Burco.